waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga reer Somaliland meel kasta ay joogaan walaalayaal waxaynu ka wada shaqeynay dhamaanteen hadaynu nahay shacbiga reer Somaliland in dalka ay nooga qabsoonto diiwaan gelinta codbixiyaasha kadibna aynu helo doorasho xor ah oo xalaal ah taasaynu bilownay 2013 waxaan darro ah inaanay noo qabsoomin doorasho xor ah oo xalaal ah 13 November 2017 dhacdooyinka soo qaadan doona waxa ka mid ah in la xirxiray mas'uuliyiin iyo taageerayaal tiro badan oo xisbiga wadani ka tirsan intii ka dambeysay 13 November iyo maalintii doorashadu socotay qaar ka midna guryahooda loogu daatay goor habeenimo arrintaasi waa arrin aan la aqbali karin oo la qaadan karin arrintaasi waxay abuuri kartaa xaalad amniga wax u dhinta sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa in muwaadiniintaas si degdeg ah xorriyadoodii oo taama loogu soo celiyo walaalayaal doorashada madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Somaliland ee noo qabsoontay 13 November waxa ku gadaaman madmadow fara badan kaasoo dhaliyay musuqmaasuq iyo ku shubasho baahsan oo ka dhacday dhammaan degmada doorashooyinka Somaliland waxaana tusaale soo qaadan karnaa dhacdooyinka maalintii doorashada waxa ilaaliyayaasha ama goobjoogayaasha xisbiga wadani soo gudbiyeen 1200 oo dhacdo oo isugu jiray dib loo geystay iyo hadidaad ama gacan ka hadal iyo khaladaad ku saabsan hab socodka doorashada waxaad ogtihiin in xataa horjoogayaasha caalamiga ah ay qireen in caruur daadoodu ay ka yar tahay daadii loo ogolaa oo 7 jir ilaa 12 jir ay codeeyeen waxaad la socotaan in komishanka doorashooyinka qirtay in buugaagtii qaar ka mid ah ay ka baxeen faraha komishanka suuqana laga soo helay arrintaas oo fooximo weyn ku ahayd doorashada guud ahaan waxa kale oo la helay sanaadiiq badan oo tirada ku jirta ay ka badan tahay tii loogu talagalay inay ka codeeyaan waxa kale oo dhacday doorashadan inay suurto gashay in dad geeriyooday Ilaahay u naxariistay ay codeeyeen waxaan shacbiga reer Somaliland iyo taageerayaasha xisbiga wadaniba u xaqiijinaynaa una sheegaynaa inaan aqbali doonin xaq darro iyo wax sharciga baalmarsan hase yeeshee waxaan ku wargelinaynaa taageerayaasha xisbiga wadani inaan xaqiijinta helitaanka xuquuqdooda u mari doono dariiq silmi ah oo nabadeed walaalayaal saad ka warqabtaan waxa dhacay dib weyn doorashada kadib waxa daatay dhiig muwaadiniin aan hubaysnayn oo waxay galabsadeen jirin ayaa geeriyooday waxa cusbitaalada Hargeysa iyo Burco jiifa dad dhaawac halisi uu soo gaaray dadka aan indhahayga ku arkay waxa ka mid ahaa inan yar oo 13 jir ah oo feeraha rasaas kaga jirto waxa ka mid ahaa inan yar oo 16 jir ah oo sida loo sheegay dhuxul u doonaysay reerkooda Ilaahay u naxariistay dadka Hargeysa ku geeriyooday waxa ka mid ahaa hooyo meherad yar haysatay oo markaa ka soo rawaxday oo gurigeeda ku socota taasi waxayna tusaysaa in rasaas aan loo miidaan yeelin shacbiga loo adeegsaday arrinta mas'uuliyadeeda waxaanu saaraynaa xukuumadda waxaanu uga digaynaa ciidamada ammaanka inay shacbiga u adeegsadaan rasaas dad aan hubaysnayn si aan dib u soo gaarin shacbiga ay ka mas'uul yihiin ammaankooda walaalayaal maanta uma baahnin in dhiig dambe daato uma baahnin xaalad amni darro ah inay abuuranto uma baahnin in walaalnimada iyo midnimada shacbiga Somaliland dhaawac soo gaaro waxaan uga digayaa mas'uuliyiinta xukuumadda iyo xisbiga kulmiye inay ka fogaadaan arrimaha kicitaanka iyo xaalad abuurka ay faraha kula jiraan
oo ay ka mid tahay xadhigga aan sharciga ahayn ee mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga wadani iyadoo dalku ku jiro xaalad xasaasi ah. waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani in taariikhdu isqorayso caalamkuna soo eegayo Somaliland sidaa darteed laynooga baahan